بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد، أرضي سود واد ومعد العتيق. نانت هلكن waxaanu ka galeynaa darsi cusub oo duruustii inoo soo socotay ah. Waxa inoo soo dhamaatay haulaa lil mudhakkar, halkan waxaanu ka galeynaa haulaa lil muannath. sidii hore aan soo sheegnayba haulaa waxaan idin iri waa tilmaam lagu tilmaamo wax ku dhow oo fara badan oo wadar ah ama jamac ah ayaa lagu tilmaamaa. Soomaaligu wadartiisu wuxuu ka bilowdaa labo iyo wixii ka badan. Carabtuna ama afka Carabiguna wuxuu ka bilowdaa saddex iyo wixii ka badan. waa wadarta ayaanu ka hadlaynaa. hagaag marka Ilaahay idin barakeeyo, darsigeena waxaan idin iri marka asmaa'ul ishaara baan ku soo jirnay. asmaa'ul ishaara ayaan ku soo jirnay. asmaa'ul ishaara marka waxaan u qaybinay labo iyo labo. labo ay iska leeyihiin raggu iyo labo ay iska leeyihiin dumarku. haulaa waxaanu niri waxa isla leh ragga iyo dumarka. ragga iyo dumarka ayaa isla leh. waxa inoo soo dhamaatay haulaa lil mudhakkar, tusaalayaashii aan ka bixinay. haddana halkan waxaanu ka galeynaa haulaa lil muannath. haulaa'idii ay isticmaalayeen lil muannath lagu tilmaamayay dhadigii labkiiba inoo soo dhamaaday. waa amthilatu ay tusaalaheeda. haulaa magharifun oo mighrafatun ah. markaad aragto halkan jumuuc baad ku arki doontaa. jumuucda waxaa laga yaabaa waxyaabihii aad ku taqaanay dhadig sida ta'niiskii oo kale inaad ku arki weysid, laakiin macna ahaan bay markaas waxay ku noqonaysaa waxa la yiraahdo Allahu musta'an muannath. muannath macnawi ah iyo muannath waxa jira wax la yiraahdo lafzi ah. marka sida uu ogaada mufradkeedina waa ka waan idin hor dhigay. haulaa magharifun oo mufradkeedu mighrafatun ay tahay. kuwaani waa badeelo. badeel waa la yaqaanaa. badeel bahalkii waxa way lagu qufayay waciid iyo qubuuraha bahalka lagu qufo afka fidsan leh baa badeel la yiraahdaa. dadka qaarna waxay u yaqaanaa majarafad. dad baa u yaqaana majarafad. haulaa musaabaqatun, kuwaani waa tartanno. haulaa musaabaqatun, kuwaani waa tartanno. tartankii tartanka ahaa wey, ama marka ha noqdo tartankii feerka, ama ha noqdo tartankii orodka, ama ha noqdo tartankii banooniga, ama ha noqdo tartankii orodka, ama kii fardaha, ama kii eeyaha, noocu doona ha noqdo. mar haddii meesha tartan yimaado waa musaabaqaat. haulaa mustashfayaatun, kuwaani waa isbitaallo. haulaa mustashfayaatun, kuwaani waa isbitaallo. haulaa masaabiixun oo misbaxatun mufradkeedu uu yahay. haulaa masaabiixun, kuwaani waa tusbaxyo. tusbax waa la yaqaana. tusbixi caadiga lagu tasbiixsanayo odayaashu ay wateen wey. haulaa maraadicun oo mufradkeedu mirdacatun ay tahay. kuwaani waa masaasado. haulaa maraadicun oo mufradkeedu yahay mirdacatun, kuwaani waa masaasado. masaasadu waa mid yareed ee caruurta caanaha lagu shubay. cunug yarka ayaa dhashay markii la rabo in naaska laga jaro amaba la rabo in biyo la siiyo. marna naasku caanaha ka caba, biyahana de maadaama hooyada naaskeeda wax biyo aysan ku jirin waxa lagu siiyaa masaasad. masaasadu waa mid marka. haulaa mughanniyatun, kuwaani waa heesayaal. haulaa mughanniyatun, kuwaani waa heesayaal. waa dumarkii weeye. raggeena waa waxa weeye waxay leeyihiin jamac kale leeyihiin. mughanniyat waa heesayaal, waa dumarka heesa. haulaa maraa'irun. haulaa maraa'irun oo maraaratun ay tahay mufradkeedu. haulaa maraa'irun oo maraaratun mufradkeedu yahay. kuwaani waa xameetiyo. haulaa maraa'irun, kuwaani waa xameetiyo. xameeti waxa weeye haddii aan idin macneeyo, xameeti waxa la yiraahdaa waa hilibka xoolaha marka la qalo beerka dushiisa bahal cagaaran oo ku taala oo loogu talagalay in ay cuntada shiido. dhacaamay soo deysaa. enzymes wax la yiraahdo oo dhacaamo ah ayay soo deysaa. xameeti bahashaas baa la yiraahdaa qaraarka ah, aadka u qaraar, oo hadday meesha hilibka kaga daadatana qaraar ka dhigayso. bini'aadankuna waa leeyahay, noolo kastana waa leeyahay xameeti. marka sidaa u ogaada.
hagaag dadka qaarna waaba laga saaraaba oo markay jirrato xamitidu ay dilaacdo ama ay jirratana waa laga siibaa haaulaa'i madaafi'un oo midfa'atun mufradkeedu yahay kuwaani waa diirisooyin ama qandacisooyin diiriso ama qandaciso maxaa la yiraahdaa madaafi ama midfa'atun macnaheedu waxa weeye waxa jirta waxa la yiraahdo ayadoo waxa jirta horta koronto ku shaqeysa iyo ayadoona koronto ahayn guryaha reer Yurubka marka tagto reer galbeedka guryahooda ilaa waa dad qabow dhul qabow ku nool oo barfna u da'o guriga markii la dhisay ayaa waxa loo sameeyaa meel kamida oo qoryaha iyo dhuxusha lagu guro sida markii kuleelada qabowba la galo meeshaas baa qoryo lagu shadayaa gurigo dhan diirimaad buu noqonayaa guri diiran oo qandac ah buu noqonayaa oo aan markaas qabow ahayn diiriso ayaa la yiraahdaa marka haddii maanta casrigan la joogo tiknoolajiyada iyo horumarka la gaarayna ayadoo waxa la sameeyay koronto ku shaqeysaba heat baa loo yaqaanaa afka ingiriiska heat baa la yiraahdaa maxaa la yiraahdaa heat baa afka ingiriiska loo yaqaanaa bahalkaas heatka ah baa marka korontada la gelinayaa qolkoo dhan gurigo dhan kuleel buu ka dhigayaa heat baa loo yaqaanaa madaafi'una waa jamcigi midfa'atuna waa mufradkeedii ayadoo dhuxul oo markaas manual dheh ama waxa tiraahdaa farsamo ah ama waxa tiraahdaa muxuu ah midfa'atun taqliidiyah iska dheh waxa weey waa nooca insha Allah sawirkeena waa idin la wadaagaya هؤلاء مفرمات وفرامات مفرد كيدو يهي هؤلاء مفرمات وفرامات مفرد كيدو يهي كواني هلب شيديال مفرمات هلب شيديال هلب وحاوي مكينة دلو شيدي ومكينة هلب كو تقنا سوما اما تي سامبوس كهان نقطو اما ميدان كلو نوعيدان كلو هاد عصب لكينو هلب كلو شيدي هان نقطو هؤلاء مكاوين او مفرد كيدو يهي مكوات هؤلاء مكاوين او مفرد كيدو يهي مكوات kuwaani waa feerooyin ama kaawiyado dad baa kaawiyad u yaqaan dadna feere u yaqaan feerada waa la yaqaan ama kaawiyadu waa tii dharka lagu feereenay ama dharka lagu kaawiyadeenay dharku markuu la dhaqo oo uu jajabo markii la rabo in laga dhigo dhar qurxoon waa la feereenaya dad feerada dad baa wuxuu u yaqaan erayga feereen tinta shanlaysiga la shanlaystay feero u yaqaan dadna waxay u yaqaanaa feereenta dharko inta bir la soo qaato ama koronto bir la geliyo la marmariyo soo dharku jacdadka uga baabao kaawiyad bay dadkaas u yaqaanaan oo mikwaatun mufradkeedu yahay darsiga inta buu ku egyahay jazaakumullahu khayr ahsan Allahu ilaykum darsiga hala diyaaliyo maanta waan idin kala daahay maadaama jamco iska ahayd shalayna shaqada ay ugu dambeysay waan iska بركن دايرست مركا عفوا كوني كوجر معهد العتيق لتعليم اللغة العربية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته